aad baan idinku mahad celinayaa tartamayaasha taageerayaasha garsoorayaasha dhaxan baa soo dhacday anoo yar dareemaya inaad yar caajisteen aad gacmaha laabateen afka aad xidhateen waxaan keenayaa injineer cabdisamed mooraaliya saxaabigula soo dhaweeya laakiin mooraalkii injineerka weli ma maqlo aad baad u salaamantihiin injineerka ma tartamaysaa mise adna ma tartamaysaa ku soo dhawow Mr. Cabdisamed oo lagaaga bartay inaad tahay ka qosliye ama majaajilista weyn waxaanad halkan nooga ballan qaaday in aad ka qayb gali doonto tartanka oohinta iyo tartanka qaniiyada marka iyo waliba khuurada caawo marka waxaan malaynayaa inaad ku tartami doonto khuurada mise oohinta aad baad mahadsantihiin dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay tartankan munaasabada lagu qabanayo laguna guubaabinayo suugaanta barnaamij aad u fiican dhaqanka in ay dhalinyartu ku soo korto waayo heesaan arkayay gabayadan arkayay geeraaradan arkayay dhaantadan arkayay jeeskan arkayay raabkan arkayay dhammaanba aad buu u wanaagsan yahay waayo qaabka ay u ciyaarayeen run ahaantii kolley gabayga axmed badulle uu joogaayo dee anu gabayaa ma ihi moogtahay madaxii dhaantadaaba jooga inkastoo aan u sheegay inuu dhaanta jayna ay noo qaadu marka ilaa haddaan ka sugay nuulaayahay kolley gabaygu inta badan waxyaabo badan buu tilmaamaa hadda qaabka qoraalka oo kaleba daba u dhigan yahay gabaygu hooyaala ay hooyaa sida loo soo socday si hadda u samaynayeen waa si steeb ama jaranjarooyin la ugu soo dega qofka gabayayay ama uu gabaygu hooyaalay markuu bilaamo haddana ujeeddadii cidda uu yahay cidda gabaysa dabadeedna waxa uu socdo saa u soo talo kolka dambe ku gabagabeeya soo maaha waxa weeye sida dee buugaba loo qoro dee waxa weeye title baa jira objective specific soo lama qoro saasoo gabaygu marka u dhigan yahay waxaan ku soo noqonna haddaba barnaamijkeennii mujaajilada iyo kolley waxaanu malayn goor dhoweydna weriyaa la matalayay oo halkan weriyaasha waa runtooda waaba runtii weriyaha laftiisa uu isku ekaysiiyey oo waa sidii dee anigu baan warka u akhriyay halkani waa radio Kaaramardo ay idin ka tageysanayseen www.tiinciin/buureed hay-adda la dagaalanka xaraarada ayaa sheegtay inay jasiiradda Basuudi xaraaro ba'ani ku dhufatay taasi oo lala soo gaadhay sheexnada isugu jira taajaro aawaday dhaadheer iyo buureed baa haddaba iyadoo oo hay-adda xaraaro la dagaalanta ay dadka u dhistay taandhooyin ayaa dadweynaha nin u hadlay afayeen u hadlay dadkay xaraarada ku dhufatay ayaa waxaa la sheegay ina uu aad iyo aad loogu soo dhaweeyay laakiin jiqilooyinkan ficnicladay ka maqan yihiin taasi oo uu sheegay inuu caafimaadkooda mirqaaneed isa soo taraya waqtiga ka dambaysa niman dabeera jira ayaa la sheegay inay ku qabsadeen gargid maanta ay ku qabsadeen taasi oo laga hortagay wadhafka wajaafka xawdka qaniinyada qanjiirada haraatida hantisada habaarka budka daran dooriga u dhacaya dameeraha raadalka dhunta soo saamay marka qaabka warku wariyuhu u sheegay waa saasuno oo war kala ah warkii caadiga soo maaha khuuradu kulli dhowr bay qaybsantaa sida la sheegay khuuradu dhakhaatiirta ku takhasusay khuurada ama jarmalka wax ku soo bartay khuuradu waxay ka kacdaa saddex nooc baa la yidhaha mid waa sanka midna waa madaxa korkeega midna waa oo tatoonkeedu moogtahay uu aadka u jiidmo qarqarqarqar yidhaa kaasi waa ninka isagoo cadhoonaya seexday baa la yidhi ka isagoo faraxday seexdayna aayar bay socotaa soo maaha aduu noocyo badan bay qaybsantaa nin baa waxaa la yidhi waa isagoo safaro suu socday baa kibis uu gaajoonayay baa la yidhi kolka xeedho weyn baa la soo dubay oo xeedho kibis ah ayaa la soo buuxiyey xeedhadii marka ila qabay islaanta la yidhaha la qaada dad baa isla qabta mogta marka xeedhada la saarayo dhowr bay ahaayeen waa tan saacadda ku dhex gooda markay cunayaan maaragtay saacad baa kaga go'da
joojiya saacad baa ku go'day waxa weeye saacad baa kaga dhaxlumaysa way kibista weynideeda hal la joojiyo adu suu waday bay ninkii martida waxa bay islaayeen baa leeyahay markaas uu lugta fuj ku yiri lugta ku marmay moogtay alla lugna uu dhidbaday lugna uu kugu maray heeseen yeela lugna jarso ka dhigay waxa dhacay islaam baa waxa la yiri waa dibadda ku dhimatay dibadday ku dhimatay show islaam markay dibadda ku dhimatay in la quraamo oo de xoolo loo qalo loo duceeyo la rabay illa in dibaddana disti weynba ma taalo dibaddiba disti weyn ee saylad ba laga waayay islaantii waxa marka la sameeyo la garan waayay meel lagu duceeyo ma jira islaantii waxa la iibiyay buskud yar yar iyo burger iyo iyadoo saa loo jeediyay baa I am sorry Allah u naxariis dib baa loo quraamay magaalada jijiga lagu qoraa waa la qalleeyay quraankeed waayo dad uu socon waayay ma buskud baa quraan noqonaya iyo burger iyo cake waa hagaag tartanka horta uu dhib badan yahay tartan wax ka dhib badan ma jiro tartanka shayga adoona garanay hadda tartanto waxa weey marka dambe adoo ama isbitaalka yaalba lagu ark nin baa waa tartamay kabuuska tolan jiray isagoo kaba tolaasuu kaba tolay baa nin saaxiibka u yimid oo ku yiri niyow tartan feed baa la soo dhajiyay moogta kolka adiguna waa adigana xoog baad ka leedahay waad isbedeli noloshaadu way isbedeliyeen ma inta waxaan toltolaysid meesha iska tagtid uu qaatay fikirkiisa fiican buu la qaatay islaantiisuna halkan ay fadhidaayo waryaahay waara isku ciyaarin wax feertay meeysidee malahan baad iga adagtay wax ismoysanaad wax maanigu waligay waan feertami jiray budo feerka waan yaqaanay adigu ka dhaadhiciyay uu waday gabar xaaskiisii ha ka dhaadhiciyay sidoo u socday ayay wuxuu yiri waxa way waa dhow markaan feerka badiyo waxaan noqon doonaa sportiga baana qabsan doonaa saxaafadaha ay wareysan doonaa yartaneedka la igu soo qori doonaa waa internetka magta yartaneedka la igu soo qori doonaa adu meeshaba ana wuxuu yiri waxaan noqon doonaa khatar ah kolkaas tartankii waa la soo qoray oo waa la soo duwan galiyay waliba gabar islaanta nin ay wax isku yihiin ba qolada garsoorka ahayd kaasna ana kugu sheegay bay tiro xodhi ma la dhigtan ugu sheegina uu ku caawin kara iyo adu soo galun meesha ha soo galo wuxuu yiri marka waxa la qaadanaya tartankana 100,000 oo bir baa la qaadanaya ninkii tartanka badiya xaaskiisii uu kaxeeyay oo adu diracna uu soo amaahdo ka bixin doono feerka isna koor iyo xub ka soo amaahday oo soo labistay isagoo labisan wuxuu sameeyay waa la wareystay markii hore wariyay haye ma diyaar garooday waan diyaar garooday 3 diyaar garooday maraq baa lii kariyay diyaar baan ahaa wiisad keenay moogtay koorkana waan ka soo iibsaday buu waan ka sii kireystay buu amaahdan iskaga bixin doona iyadana dharka waan kaga bixin doona amaahda macaltii amaahda leed baa feerka timid sidoo u socday buu soo joogsaday wuu soo diyaar garoobay bahashii gacmaha loo soo galiyay nin xoog weyn baa ka soo baxay una filaynba kolkaas uu dib u siqo ninkii garsooraha ku yiri waxba islama hayay waxa weey ninkan adiga ilaahay baan kugu aaminay u gariiraya moogtay feerkii horeysay waa ka madaxa dhulka ku dhuftay hatta talaabadii horeysay waa ka lagu dulqalay maaliyadii baa dul fadhida moogtay way balfinaysay dul fadhiisatay balfinaysay kolkaas loo tiriyay 1 2 3 adu waxa la wadaba 999 mikrofon baa la qaatay 1888 naaninku u dhintay in yar buu dhaqaaqaya isagu bay tir way sugtay ayar markii dambe kacay kolkaas uu dib u gurtay oo niman garsooriyaasho sida Axmed Budul iyo fadhiyo kale uu ag tagay wuxuu yiri walaalayahay igu sii daynina ninkan waxa weeye bal si uu tagaa wuxuu ku yiri markii dambe 100,000 hadii aad isiiso 75 baad u qaado 35 adigu ninka kale ku leeyahay seerigayga afuuf war hore u sii soco dib uu socday dib markii dambe lagu dhuftay hadana uu dhulka ku dhacay markuu dhulka ku dhacay buu kacay kolkaas la yiri buugi isagoo bes dib ku islaantiisa buugi soo qaad waan dardarmaya halkaana waxbaan ku aasay halka waxba la iga lahaa markaas loo tiriyay 1900 maxay tirada la tirinaya kolkaas uu yiri milyan hada tirana ma kacay iga dul dhaqaaqa saasay ahayd waa hagaag kullay deegaanku waa kii qabtay xaflad beher sabooj oo dhammaan qoomiyadaha Itoobiya oo dhan ay isugu imanayaan qoomiyadaha waxa kamid ahaa Sidaamo Walayta Arri Koficho Kafa Yam Gambela Tambaro Alaba Gamo Gofa dhammaantood la isku yimid moogtay hayeeshe iyadoo sidii ay tahay oo
ta xagxaganta sarsaran ta xiirxiiranta cagaaganta oo dawadata ta waxoo dhanba dee ninba giirgiir uu leeyahay oo wada giirgiir leeyahay la wada yimiday dhammaan dadkii oo dhan markay meesha yimaadeen waa tii goojooyin loo dhisay xafladii waa la diyaar garoobay martidiiba aad u soo dhaweysay inaan xariifo oo markaa meelaha ku qoraa soo dhaweynta isaguna magtoo dhex boodayay ayaa gabadheer oo dhuuban oo madax yar oo indha cascas oo sarsaran oo qaawan oo naaska kookada ku furaysa adag nacam gebigeeduba ayaad yaabaysid ayuu jeclaaday gabadhii la isma afgaranayo gabadha wax alla wax la iska afgaranaya ma jira ninkani dee siduu u garabooday unbuu baysiidhi tanaad ka dayactiran moogta way jaban tahay qiimo jabanoo malaha dad 2,000 oo riyaal ku bixisa dayactir fudud mana xanuunsanaysa shaybaadhna ma baano waxma baano durayna kuma dhaco siday u socotay adu kolkii dambe magaceed waa ta la soo kaxeeyey gabadhii marka la soo kaxeeyey baa layidhi hala meheriyo wadankeediina dee kolley wax dee cunto xaflad lagu diyaareen la garan maayo mooye adu lafa iyo adu waxbaa lagu diyaariyey say u dhannayd gabadhii baa layidhi bas sheekhii baa ku yidhi magacaagii baan bas inaan qorro rabnaa si lagu meheriyo magaceeduna aad buu dheeraayo dee meel lagu qabto waa la garan waaya magacaagu sheega markaas mamoodera itohii karito oodi acuudu billaahi min ashaytaan rajim yaa haye sheekhu carabi buu ku qoraya weliba mamoodera itohii karito oodi buu yidhi qoray aabbahaana bushamuraanjada eetibit acuudu billaahi min awowgaana baa la yidhi shulluka shaamba waa kanad boqor waa kani si alla si loo qoray aabbaha wuxuu ku awowga uu yeedhin uma yeedhi karno ma odhan karno oday dee weyn oo gacala inaad tira waa dhib badan tahay magtahay kolka gabadhii waa wuxuu yidhi markii dambe dee magacaaga bay magaciisiiba cashir noqday in buug lagu qoro kombyutar lagu qoro gebigeediiba aduu aakhirkii dhar yar buu iibiyey uu dayactirtay cuntadii baa la isku afgaran waaya markii dambe sidii baa lagu diray deegaankeena luuqado badan baa laga hadlaayo codka unbaa kala duwan toonka unbaa kala duwan nokia toon baa jira china toon baa jira waxa samsung toonka baa jira mise toon baa jira markaa waa toonka un aryaahe roobkii deerag loo sheegi jiray soo mahayn waxaa jiray maad garanaysaa budada la gelgelinayaan ku gartay garaabada tuulan baan ku gartay gibida aadu oodan baan ku gartay garaadka u yeedhadaan ku gartay waa hees moogtay nama wiil gaaban baa ku guursaday wey moogta marka waa budada la gelgelinayaan ku gartay garaabada tuulan baan ku gartay garaadka u yeedhadaan ku gartay waa intaas la isku yeedhay moogtay sidii nalka adari nuur badanay nimcoy nuuradoo kalaa tahay caddi darteed caddaanka ayahayd moogtahay markaa waxaa la yidhi naag baa caana iibinaysay oo dhowr nin oo mirqaansasho dukaan weyn oo caana haysatay disti weyn baa caanaha ku shubtaa caana geel caana adhi caana lo saddexdaba disti keliya ku wada shubtay ile hal distiba ku wada jiraan kolba nin bay caana geel madaysa haa way u dartaa nin markaa mirqaansan baa jiray oo isagu intuu koobka loogu shubay ku hor cabayo oo daawanayo inan kalaa yimid caana adhi wala liga iibi haa walaal caanahan bay u dartaa distida waa niya waa sidii saddexdii caanaba halkan ka dartay distidan ka dartay way yaaban yahay kolka ilaa way kala xadhaa caanaha adhigu dhexdu ku jiraa baan malinka geel noo cirif uu yahay waa isla distidow way qiyaastay kolkaas intuu soo yarkacay ku yiri walaal saddexdan distidaba saddexdiiba halkan bad ka dartay maxaad u jeedaa waar oo ku dhanbay tir awriyo inta saagu shubtay bi ninkii isagii baa yaabay oo fakaday meel waa la wadeebiyo nin waliba niyadiisa wuxuu ka dhigtay beed caanuhu nin waliba niyadiisa wuxuu ka dhigtay beed waxa la yidhi nin baa dhoofayay oo dibaddu tagay ilkaa xanuunay dhowr iyo 30 jir uu ahaa dhakhtarkan Yurub la geeyo dhakhtar maadaama computer da'diyo wax sheega jiro waa la baaray ilkihii baa computer la saaray ilkihii baa noqday 250 jir 250 jir bay ilkihii noqdeen ilkihii baa ka daaweynaaday isagii kolkaasay dhakhaatiirtu ku wareerto milkii awowga baad sidataa baa leeyay waa la rogrogay kolkii dambe show ku qayili jiray oo kiiloomitarkii qori jireen oo laba cimrigiisii way ka dheereysayeen qayilkii marka aad iyo aad baad maasantiin dhaantadu way sii socon gabaygu sii socon heestu sii socon laajadii baa ku hadhay injineer Cabdisamed haddii aan tusaale yar soo qaadano
in Cabdullaahi waa loo dayaa laga dayahay wuu jarraaqday micnaha inaad laajadiisa u soo wareejiso luwajadu kulli way farabadino deegaankuna aad buu u weyn yahay oo waxaanu ka soo bilownay Shiniile waynagii dhulka soo maray aad buu farabadnayn marka luqadu oo kolka xagga la tago kale waxay ahayd waa kiisa 7 nin ay bambada heleen ay ku ciyaarayeen waraalaale how maydhane rabiila oo waa kuwan iyagoo eegay baashi ku qaraxday bawayt markaasoo mid ka dhaxkacay barko yanaqanayo niqwayna hamoyna muumin dul baa u dhacay araw taragal liqday maayo wax ya kawde wa rabiila haw ta cuntay kolka waynagii hoos soo soconay aanu ilo ole mobilku telefoonko yaanu ilo ole waxa la yiri odayba waxa la yiri marka wuxuu sameeyay mobile ba waxa la yiri ka lumay mobilkii marka ilshawr lacag bu ku ritay kolkaas uu yiri mobilka 10 riyaal baan ku jabiyo uu ku riday mogtay 10 baan ku jabiyay aanu ilo olay oo maxaa ku geey fadulun he aboy 60 waatan Axmed waa xabad kibisa kama dandamin waxa ka lunta leh 30 riyaal waa 60 shilin mogto tuuga hadii la jafaqo oo ileen waxan uu dayn lahaa kawde saacad bay watil xamiidadii saacad lahayd baan nooliga keen baa leeyay baabuur fuushan nooliga keen tusha sharif fuushan tahay oo luki baa ku xidhan wax walba ku xidhan وأني وانقارين كيا بهدو حتى رقم ده حكومة نقدان ويا كعانو سؤال يا يقف كعاق موجوده هي وفولون ويفول بابو أنتو بورك صور دايس ركروجي نيم ولي بوركم بقدر تحكي أكبر آير قد وفولون ما تشابه عندنا حمل نقط إن حميدة دي ساعات العيد بان ولا لنهم هذا نجارني ساعات اللوك تكو حرين جرت الليل ساعات بيك شرهيد كل كاسة واحد عي waxaa la qoosh badan intay qoysay habeenkii dhimatay show ila intay qoosh badan qoysay naftu ka baxday uma loo deewaa ka taxsiib abarorti la fadhiistay ninku halkan ka calacalaya ahay xamiid ha dhimatay sarciga khasaara igaga daran bal waxay qooshka isagu wuxuu ooyaa qooshkan khasaara yaa dubi bulay bal yaa dubi waa kan bal joogay me xalay iska daysaday go'ayso وين سوسعني وينجي صومري حاجة إيو فيق صومري أرباد لولي أرباد ديجي أرباد ديجي أرماد أمي كتم بقاري إن وينجي حاجة هتنوع عني إن كيتي ما وينادي إن كي شارك عسى تقدر تلعب هذا كل قاي وبعد شيء قدون شيء إن وينك هذا نوصبنا وارياه يقول لي بالله ده قاس كيف أيوك عيو يا هرسومات قرن هرت إله بين دي لا ده الدنيا ده محاصر تكون ده وبدين هذا سيدور تركيا ده ده كده قاتن ده مسكحة قد كامل يا هرت ده أنتوا دور قدالين ده بدنا بكاجد مركا حال كان واحد كجرا فوري راني شاني واشارك kolka hadana halkeenu sii marorta Axmed Budul baa nawadi baaburka tiroolkooda ay aan sii socono waad sii dhaadhacdeen waxaynu u gudubnay xagga ay liibaan Soomaaliin waxaynu nidhi Bashaar markaad kacayso hayga kicin waan isla kacaynaa waan israacaynaa hayga tagin waan israacaynaa bay magtaay ka wada waan israacaynaa markaad tagayso waan israacaynaa hayga tagin Bashaar kucid markaad kacayso hayga kicin waan isla kacaynaa waxa kale jiray xagga ay waxaan soo maray baheed anoo meelo xiriso maaha anoo meelo saamara masaajkan jeed salaad saamuri may way daagay waa ilaa qallaf Soomaaliin liisan hay qandaraas baday ayuu Soomaa nin oo weyn oo odi ah oo duqay soo fiiq qarlaafeed xagga u dhaaf waxaynu maray xagga iyo afdheer baan tagnay Soomaa waxa la yiri dib u curashadii afdheer markii lagu qoray show Shiniila nin Shiniila lagu qoray
afdheer hudheel buu galay oo cuntu dalbaday wuu fadhiistay cuntadii markuu cunayay ayuu ninkii mutalabkaa dul yimidoo dhacaan ma kugu daraa buu yidhi show dhacaan xaggaana waxyaabaha boogta iyo waxba loogu yaqaan kolkaasuu qaacay kolkaasuu waar muxuu waar dhacaan marka waa isfahan la'aantii waxaa la yidhi kalluun waxaa la yidhi waxaa ka lumay wiil baa ka laabo malaa tahriibtii waxbuu ka raacay kolkaasaa la yidhi wuxuu ku xidhan yahay liibiya kolkaasaa loo sheegay oday kolkaasuu yidhi xadhigdaa hadalkiiye kalluun afkaa lagaga guro buu yidhi kalluunka waxun buu moodayay markaa mogtahay kalluun afkaa lagu guro le meel xaggaas waxaa jirta budadka tuulo waxaa jirta budadka lagu iibiyo budka waarwaa sodoh waabiyo sodoh waabiyo sodoh waarwaa soddonka nixiyo soddonka nixiyo waaryo usan loo xaysinaysaa budad yaroo gaagaaban ku qallooca ku dheer ku gaaban dhowr bud oo noocoo rag budad iibinaya dalkaysaa waarwaa sodoh waabiyo soddon gabiye soddon gabiye soddon gabiye waa la leeyahay mogtahay injineer axmed waad ku mahadsan tahay wakhtiga oo kaa dhammaaday xaggayga waxaan ku leeyahay ma aad gudbin waad iska fadhiisan kartaa inaan gudbaba uma iman